oo adduunyadu aqoonsan tahay degmooyin la magacaabay hadda ka hadlayso dhulbahanti laba ku leeyahay wuxuu ku leeyahay fiqi filiyu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay damalaxgar ku leeyahay oo maaragtay labada degmaba waliba dhowr iyo toban sano ka hor baa Puntland ay magacaawday new ceergaaba ana majority ku ah isaaq shalay waa ku dirnay sidii Umar Maxamuud ay gaalkacay kaaga saareen baa uga saaray laakiin dad walaalnimada iyo Soomaalinimada jecel baan hayo waa soo celino waa soo dejinay heshiis kii gaalkacay ku timi mid lamida bay ku yimaadeen maayir baa ka hadashay weligayo maayir naga ahaan jirnay hadda inta dambe waxa lagu doortaa doorasho galaan annagu nidaamkooda ma aaminsanin doorashadooda kama qayb galno dhul aan leenahay sanaadiiq ma keenaan markay magaalada dhinacooda uga codeynayaan dadkaygu shaabi cabaan ma aaminsanin nidaamkooda dhulkaasna waa dhul ay haystaan oo under occupation hadda tusaale ila ku siinaa gobolka Sool intii ay ka haysteen gobolka Sool yaa u taqaana dhulbahanta iskale laakiin governorku yuu ahaa governor Gibiley laga soo magacaabay sababtoo ah waa occupation macnaha madaxweynahoodaas wax soo magacaawda qof dadka iska korkeena waa waxa laga dagaalamay laga dhidiyay dadkana waxay rabaan inay taladooda maaragtay iyagu ay yeeshaan maalinta ceergaabo doorasho xalaala lagu wada qanacsan yahay Soomaaliyeed dawlad Soomaaliyeed qabanayso maalinta marka la gaaro saaq laba ama saddex cod buu ka helayaa waxay ka noqonayaan minority warniyo daahiro isaaq ma jecli waa ku ogahay iyagu kuma jecla marxaanti bay leedahay eedooyinka waa ku iyagu yama ka soo qaxay laga celinayay meesha la yiraahdo afka lagala dhacay usha dekada berbera oo yamaniyiinta la soo daadinayay aniguna waa anigi diyaaradii tarxiilkii laga diiday dadka hawi ay saarnaayeen oo Hargeysa ka digay laga soo celiyo intooda inta kala digan inta kale ay soo celiyeen diyaaradoo bilaashiraala waa anagi anagu soo dejinayno soo dhaweynay laakiin waxa ku geynaya warniyo daraawish waagi hore waa taageer jirtay daaroodka qaar kamida dagaal iskala jir xarbul ahli ha idinka dhaxeeyo iska nacaaw laakiin daarood waa ku kala qaadnaan jiray ogaadeen daraawishta niman maaragtay taageertay ahaan jireen inta ka warqabo naxibkii ma jirteen ba halka u gaarsiiyay ba aanu oran karaa waxa leeyahay marka warriyahow dadku waa dad Soomaaliyeed weeye daaroodna yuu daarood ku noqdo daarood dad balaaran weeye haddaa gaalkacay ma jirteen ama Umar Maxamuud isku haysaan ama reer mahada isku haysaan wartay daraawish adees ma gaartaan sidii horay u taageersanayd u taageer baan ku dhahaynaa haddaadan taageerayna hadda daraawishtu waxa weeye iyaga dhulkooda difaacanaya iyaga jooga waxa la yiri la ka sagaara raqun ba istiraan anu hadda musabix waxa ku soo kordhinayso garan miyo halka waa uga soo qeylin kartaa wax waa u soo qori kartaa hadda waa u soo qoraysay propaganda iyo saxaafadu xogama soo kordhin afkaaga ka qirtay hadda facebookkaaga eegaya in layni ka adkaaday propagandadii isaaq waa ku fiicnaan jiray battery laakiin maanta waa loo ka adkaaday militariga waa looga adkaaday oo wata maanta xabad joojin maxaa ku raada iskooda ay ku dhawaaqeen anay ugu xiranta xabad joojinta inaan aqbalo garaadadayda fadhiya laascaanood hadday yiraahdaan biri waa aqbalno waa la qaadanay xabad joojintaas dhowr ka cisho waa dhaqan gelaysaa haddaa iraahdo may kir oo biri xabadda halka kasii bilaabo waa sii cararayaan ama waa isdhiibayaan waxba uma dhaxeeyaan marka hadallo badan hataa ay gashay ogaadeena isku qaaday nimanka isaaqa isugu tageysaan war wallahi isaaq la isugu tagin la isugu tagi miyo iyagoo isaaq oo kaligooda marimayaan dad kale wataan horgalo xataa aniga oo nimanka shaati maamul bay gashan yihiin maalintii Muuse subaxii markuu shirka jalaad qabanayo waa nin qaran sheeganayo horgalo aniga aba hareeraha ka taagan galabtii nin isaaqa tolaayay xaafadaha Hargeysa oo dhan ku wareega liyu booliis ugaadeen ilaa marxaan baa soo weeraray habeenkii waa irir Soomaali aduu ku soo wacaya Ismaaciil buu bariyaya isaga naftu haysaa meesha dhulbahante oo garanayso taariikhda cidina aysan dafiraynin cidna aqoonsi uga baahnayn cidna loo sheegayn baa dhulkaale iyaga difaacanaya iyaga kacay wallahi baan cid kale ugu tigin waxa weeye xaq bayna u leeyihiin dhulbahantana waa ku sheegaya arab oo garanayso oo jifa isaaq kamida baa dhulbahantaha aragtay hooyadii waa islaan arabi ahayd macnaa dhulbahante habar jeclada sheegaysa xataa wallahi uma dhigmo
habar jeclada sheegayso wallahi xataa uma dhigmo marka la sheegayo laakiin dad ilaahay balaariyay inaan nahay oo laandheerayaala afkaaga ka qiraysaa maantiyo berri afkaagu ma karo inuu isaaq kala guro isaaq laakiin aniga waxaan rabtaa inaa warsan geli tiraahdo dhulbahante ma jeerteen waa kaaga baxay inoona soo gabagabay insha allahu tacaala anu howl kalaan leeyahay odayaashaan bismillahi rahmaan rahiim horta waa soo gabagabaynayaa doodada qiimaha badan waxa weeye mid horta adaa is soo xirtay hebel way soo xiran maqashay kol haddaa jira ceergaabo isaaqu waxay rabaan maayarka marka la aadayo in mataqaanaa ilaahay kuga sabadiiday ee dadka ay codeeyaan oo doorashada dowladaha hoosaa la dhahaa annagana kama qayb galno shahna ciyaarnaa micnaha ilaa minority ni caddaynaysaa mar haddii qofkii cod tahay marka qofkii codkaasi waa doo wanaagsan magaaladan hadda laascaanad ka hadlaysinna maayir ku-xigeen habargii dhulbahanta ka ah in cayr caddaaho ayaa la caddaaho faqashiniya maayir ku-xigeen ka ah wixii oo gobernatoriyaal muuse biix isaga ha magacoodo laakiin maayirada magaalada iyaga wey marka halkaasi inay majority ku yihiin nin baa iska fadhi waagi horena nin iyo wiilkii baa iska fadhin jiray goorta warsagiriga maayir ka noqday adanoo sheegi doonto waxaad tiri dadkaaga la soo celiyaa odayaashada laga soo celiyaa islaamaha qaxootiga laga celiyaa ay tiri meeshaanu gudoomiyaha baarlamaanka waa daarood somalilandta lagu leeyahay wasiirka gaashaandhigga waa daarood taliyayaashu waa daarood anaga waxaan u qaadanaa dadka inay cinay daaroodka ku dhex jira isaaq inay yihiin oo maamulka tasano awoodda leh oo saraakiisha ah marka isaaq kaliya uma haysano badda waxaan usoo laabanayaa aad ka hadashee laascaano iyo sool haddii adika afka daarood ku hadlaysa adigu imika waxaa leedahay anagoo hartiya anagoo daarooda ayaa leedahay haddaan iyo daaroodnimo ku hadlayso ediyo daaroodnimahaas ku qanacsanow maxaa gartaani aduu qabiil baad ku hadle af daarood baad ku hadle af harti baad ku hadlaysa waxaa leedahay hana kala qaadin haddana anigi waxaad igartahay inaan ku beerjiraaco oo aan kuu heliyo see isku keeni kartaa aduu waxaad ba aaminsanta dhulka dhul inay harti ay leeyihiin faqashadiga ma aaminsanid isaaqa kula degan ma aaminsanid nimankaa direed mataqaanaa cabdalle ma aaminsanid ilaah gabooyaha meesha degan madhibaanka ma aaminsanid kaligaa baad aaminsantahay meesha ku fadhiisanta marka xagee isoo gashay marka aqli okay waxa aan kuu sheegayaa hadalka waxaan kusoo koobayaa laascaano daarada dhan ba ka dagaalamay al-shabaabna ka dagaalamay daarada dhan ba ka dagaalamo wax niman ku dhinta waga dhac bay ahaayeen niman ku dhinta reer mahad bay ahaayeen warsingiriga adaa sheegto dhegeyso warsingiriga adaa sheegto waxaa tiri baabuurtii warsingiri baa soo socda jidka loo galo waa gudax lagu dhigay sidoo kalena cabdimadoobe iyo jaamacotiye oo laba nin saraakiil al-shabaab nin caligeliya nin cigaal naareeya ayaa ka dagaalama meesha leexdo mataqaanaa meesha leexdo laascaano waxaa usoo laabanaya waxaa tiri waagii ay majeerteen gaalkacay ka qabsadeen taariikhda ku sheegaya majeerteen gaalkacay anaga ka qabsanay burtina anaga ka qabsanay gabayl laga tiriyaa joogo haab qiyaam male dagaalka warsangiri iyo dhulbahantaa ku soo celiyay magaalada nimanka kadibna ceejiid iyo cabdullaahi yusuf baa xamar isugu tego heshiis wada qaatay heshiiska gaalkacay halkaasaa yaa la yidhahdaa arrintan saa u baro maadaama nin yaraad tahay oo beentii faanka majeerteenka ku soo gaaray kuwaasi haddana anaga u talno marka hore anagaa meesha ka saarnay waxaa isoo haray qabyaaladii horta caawa sheeko qosol lahaa dhacda dhiigga igu kale caawa waxaan arkay adigoo odaga dahabshiil daaroodow wixina kala baxa adoo ku shida odaga dahabshiil maxamed xaaji maxamed siciid waxaan raadiyay sheeko daarood oon caawa ku socdo waa soo waay markasa waxaan yidhi haddaysa haatan nimankaa hartiyeed wax sheekada lahayn oy daaroodka shirkada la garaaca lahayn dee xaajiga waa ula hadlay waxaan ku yidhi nimanka shaqaale qor marka waxaa weeye reer dhanoo hadda shirkad lahaynaa tiini anigu waxaan ka cudur daaranayaa markastoon hadlaya anigu waxaan ka hadlaya awood qaybsiga beelaha anigu waxaan ka cudur daaranayaa dhulbaanto waa jeclahay wiil soomaaliyeed oo la dilay iyo hooyo soomaaliyeed oo la dilay ma ogolin mana taageerayo habili ku meehi laakiin ifaatanka qabiilada ee gobolka ka jira yaa mar walba ka hadlaa waxaan kaloo aniga aan daba joogaa nimanka shabaabka ah cabdimadoobe iyo jaamacotiye arrinkooda waa daba joogaa sheekadan qabiilka ah ee daaloosimka wadaan